madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa soo gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaana socdaalka madaxweynaha ujeedadiisu ay ku qotontaa ka qaybgalka shir maalinta bariya halkan ka furmaya kaas oo looga hadlayo ka faa'iideysiga dhaqaale ahaan biyaha badaha wabiyada iyo harooyinka dunida oo qayb ka ah qorshaha horumarinta ee qaramada midoobay ee ku aasaysan 2030ka madaxweyne Farmaajo ayaa martiqaad ka helay dhigiisa dalkan Kenya Uhuru Kenyatta oo markii ugu horeysay shirkaas caalamiga ah lagu qabanayo wadankiisa kaas oo ka soo qaybgali doonaan in ka badan 4,000 oo isugu jira madaxweynayaal wakiilo ka socda hay'adaha iyo urur caalamiya madaxweynuhu wuxuu u yimid Nairobi isagoo ka helay martiqaad gaar ah shakhsiga madaxweynaha dalka Kenya madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ku martiqaaday shirweyne ku saabsan dhaqaalaha badaha iyo dhowridda iyo ilaalinta badaha iyo horumarinta dhaqaalaha badaha ayaa lagu qabanayaa magaalada Nairobi oo soconaya berito oo bishu ay 26 tahay ilaa iyo 28ka madaxweynayaal badan iyo wufuud badan adduunka ayaa ka soo qayb galaya arrintaas oo adduunka muhiimad gaar ah u leh oo ah meesha isha lagu hayo oo bani aadamku laga yaabo inuu u baxsado xagga dhaqaalaha kheyraadka badda ku jira oo kalluunka iyo ay ka mid yihiin kheyraadka badda oo dhan Soomaaliyana arrintaasi muhiimad gaar ah ayay u leedahay oo waxay ka mid tahay saad ogtihiin dalka qaaradda Afrika marka laga reebo jasiiradda Madagascar ugu xeebta dheer shirka maalinta bari furmaya ayaa waxa hor yaala qodobo muhiim u ah ka faa'iideysiga dhaqaalaha biyaha badaha wabiyada iyo harooyinka iyo waliba sidii awood dhaqaale loo siin lahaa ama loo kobcin lahaa bulshada ku nool xeebaha iyadoo ay qayb ka tahay arrinta laga hadlayo isbeddelka cimilada Ali Baasha Cabdullaahi warbaahinta qaranka garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta